Okay, asxaabay soo dhawaada. Waxaan joognaa hadda adsets levelkan joognaa wuxuu yahay adsets. Marka campaignki waa soo dhaafnay. Marka adsetska aan joognaa hadda adsetskana waxa waaye meeshii aad ka create gari lahayd dadka aad rabtid in xayisiintaada arkaan, dadka aad rabtid inay wax ka iibsadaan, meesha ay joogaan iyo u yihiin dadka macnaha age-kooda waxaas oo dhan meesha laga create garay waaye adsetsku. Marka haddii adsetskan oo kale aan rabno in aan dad aan magac u baxsan oo kale, hadda magaca waxaan ka dhigi karnaa oo kale, for example waxaan ka dhigi karnaa magaca gadaal ku imaan doonaa insha allahu tacaala, laakiin dhib male hadda adigu jagoron u bixi just to make it easy si macnaha anaga dhan aan u fahmno. Marka hadda meeshan marka aan hadda marowno waxa waaye conversionkan waa macnaha sida aad rabtid in wax lagaaga iibsado waaye. Marka step by step aan samayn doonaa insha allahu tacaala iyadoo different hadda marka maadaama anaga aan conversion soo dalbanaaday conversionki aan joognaa. Haddii wax kale aan dalba lahayn markii aan joognay ii sheeg campaign levelka koobaad haddaan dalba lahayn meesha ay ku qornayd considerationka oo kale aan ku dhufsa lahayn ma arki lahayn conversion, waxaan arki lahayn wax kale oo ka nooca. Marka dib aan u arki doonaa insha allah. Marka hadda maadaama aan conversion ka bilaabnay waxaan oo cashirkeena uu ku saabsanaay inaan waxaysiino ku saabsan dad guryo loo dhisaayo, waxaan rabaa marka inaan sii wadno. Marka hadda adset levelka waxaan u baxsanay magaca u bixino waxa waaye jaburon. Jaburon markaan u bixinay waxaan haysanaa meeshan hadda conversion ka imaanay. Marka wuxuu ku weydiinaa website-kii see rabtaa inaad macnaha dadka aad wax ugu iibiso ma app mase website, messenger mase whatsapp. aniga marka hadda maadaama aan nahay conversion oo website-kina aan haysano waxaan leenahay website. So markaan website weydiino on website dhahno, haddii websitekaas aanan samaysan lahayn pixelkii aan horu soo samaynay, marka faa'iidadii oo pixelkii ayaa hadda meeshan kasoo baxaysa. Marka haddii aanan pixelka aanan soo geli lahayn websiteka, pixelkan hadda meesha nooga muuqato oo leh page view-ga iyo jaburon pixel iyo waxaas dhan leh, haddii aanan soo samaysan lahayn macnaha ma noo ogolaa lahayn websitekaas, because websiteka markaad taabatid waxaa khasab ah inaad pixelka aad rabtid oo aad ku macnaha aad rabtid inaad wax ku xayisiisatid khasab ah hadda inay meeshan kasoo baxdo. Marka meeshan marka ku dhufatid waxaa soo baxayso pixelkii aad rabtid inaad wax ku xayisiiso. So hadda maadaama oo whatsappka uu ku dhuftay oo accidentally ugu dhacday, laakiin marka ku dhufatid website oo ku dhufatid xaggaas waxaa kugu soo baxayso jaburon pixel, because wuu xasuustaa marka. So marka jaburon pixel ay soo baxdo wuxuu ku weydiinaa markaas conversion event. See rabtaa marka event maxaa rabtaa inaad wax ku see rabtaa in macnaha aad ku optimize garaysid xayisiintan ama aad macnaha dadka aad raadinaysid waa dad noocee. Marka haddii aad xasuusatid hadaaye markaan domain verificationkan samaynayna oo qaybta oo iOS 14 markaan ka hadlaynay oo macnaha Apple iyo Facebook dhibaatadii ay sameeyeen ama dhibka ka dhacay oo Facebook ay dadku qasbeen in macnaha dadku ay sameeyaan inay dadku ay soo verify gareeyaan waxa ay rabaan inay xayisiiyaan. Waxaan sameynay laba kaliya, labadan sameynay waxay view content iyo lead. So labadii bisa arkay. Marka haddii aad website-kaagu aad soo samayso kale purchases oo kale isheeg donate-kan oo kale schedule waxaan oo dhan haddii aad macnaha markaa soo samayso meeshii oo 8 bisa lagu ogolyahay lagu dhahay, haddii aad xasuusatid I hope inaad xasuusatid. haddii aanan xasuusan please go back, because haddii aanan fahamsanin meeshii kale si fiican uma fahmin. Marka hadda lead haddaan ku dhufsado macnaha waxa waaye lead aan macnaha ku optimize gareynayo ama aan macnaha aan ku dalbanayo. Haddii aan page view aan dhahana waa same. So marka adiga leadka ayaan hadda waxaan leeyahay leads aan rabaa macnaha. So Facebook waxaan rabaa website pixelka uu macnaha uu xasuustaa waxay tahay pixelkan horu soo gashtay, leadsna waa rabaa macnaha. So cashirkan marka waxa waaye intaan yartaa ayaan hadda ku simayaa, because intaan ayaa muhiima inaan sii socdo ma rabo. waxaan rajeynayaa inaad fahamtay. Marka cashirka ku xigi doona wuxuu yahay cashirada oo kusii hooseeyo. Marka soo dhawaaw. Haddii aadan fahamsanayn website-kan iyo pixelka meesha maxay ugu soo baxaysaa iyo please go back cashirkaas kale kusoo noqo, soo akhri and then kabacdi inta imaaw.